Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin salaam meel kastoo adduunka joogtaan Soomaali Maxamed waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelka subscribe inoo saar gambaleelkana furo muuqaal kastoo aan soo dhigo si aad daawada ugu horeey aad ka mid noqoto insha Allah haddii aad muuqaalkan daawato ku cajiib gelin waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like noo saarto like way noo dhiirigelin commentiga quruxda badan ay soo qoraysan waxay ii noqonaysaa dhiirigelin aad iyo aad u weyn insha Allah waana mahadsantihiin saaka waxaa waa quraac inaba aan caadi ahayn oo xaaji inoo diyaariyay ani caruurta anagoo jiifno shaqo ayuu subax alisiye kasoo baxabeen ayuu shaqeynaa marka bahalkaas waxaas quruxda badan ayaa lagu sharafay iyo quraacdaas inaba caadi maaha lagama sheekeyn karo ugu dambeyn quraacdeeni markii aan cunnay waxaa xilliga qadada ayaa la gaaray altoka biltoka tubaara teer maqli jirteen camal ma fahanteen marka waxaa aniina waxaan dhahay qada ayaa kasoo tuuraa insha Allah halkan waxaan soo saartay hilib marka guriga la wada joogo waa sidaa hilib ayaan soo saartay halkan waxaan kusoo diyaarsaday baradho ayaan waxaan usoo jartay si fiina ah kadib markii aan baradhada soo nadiifiyay waxaan ku daray sida arkaysan waa cusbo waxaan rabaa baradhada inaan ka sameeyo jibsiga yani bariiska dusha aan ka saari lahayn insha Allah marka waxaan u sameyn doonaa kalar ayaan u sameyn doonaa haddana waxaan sameynayaa halkan oo ku shiilaya waxa waaye dabka ayaan saliid soo saartay kadibna waxaan ku darsaday xawaashiyada bariiska xawaashiyada aad jeceshahay waa xawaashi duudhuub iyo qorfo iyo shanto xabo oo heel ayaan kusoo darsaday kadibna intaa markaan isku soo shiilo waxaan halkan kusoo darsaday waxay tahay kabsar caleen iyo toon saddex batoon iyo kabsar caleen ayaa soo tumay kadibna markaan ku daray intaa ayaa haddana si wanaagsan isku dhexgelinaya oo shiilaya waa isla arkin waxaan kasoo bixi doonaa bariis ay naba caadi ahayn waxaa halkan hadda kusoo shubay bariis aan soo nadiifiyay bariiska waa muhiim in aad 3 mar camal dhaqdaa ka badan haddii يعني 3 mar ugu yaraan waa inaad dhaqdaa haddii aad ka badan awoodin inaad soo wanaagsan tahay bariiska si arkaysaan waa soo biyay hadartan waxaan isku hubinayaa cusbadiisii in ay isku dheelitiran tahay in kaleeto markaan control bariiska waraaqad badan u baahno si arkaysaan hadda wuxuu noo bilaabay inuu soo badbado kadibna halkan waxaan kusoo diyaarsaday waxaa bariiska kalarka aan ku dari lahaa oo gaduud iyo casaan ah bariiska sida markuu noogu soo karay waxaan ku darsaday wax yar oo kalar ayaan gees kaga darsaday kalarka inaba caadi ma haddii aadan jeclayn waa ka dhaafi kartaa kadibna waxaan kusoo darsaday waa sabiibka madow ama sabiibkan oranjiga haddii aad haysato ku darsan kartaa labadaba qurux ayay ka dhigaysaa bariiska halkan waxaan soo saartay waa saliidi hadda waxaan ku bilaabay baradhada cadeed halkan waxaan laba meel ayaan kusoo kala xaabsaday baradhadii qaybna waxaan kasoo dhigay gaduud qaybna waxaan kasoo dhigay gaduud ma oranji iyo cagaar kadib halkan waxaan ku sameynayaa hilibkii markii maraqa kasoo bixiyay ayaan waxaan sameynayaa hilibka ma gelinin ofinka kor ayaan jeclaystay in aan ku shiilo kabsar caleen iyo toon iyo maraq digaagiis ayaan ku soo daray halka ayaan ku soo shiilayaa dubista baradhadii ayaa noo socoto waxa waaye gacanta fududay ama gacantaada ha shaqeyso hadalkuna ha yaraato hoosh ha badnaato hadalkuna ha yaraada socoto inaba caadi maahan qada inaba caadi ahayn ayaa kasoo baxday lagama sheekeyn kariyo bariiska kaaliska araga kasoo baxay waan huuriyay furfurkaas ayuu noqday maasha Allah tabaarakallah dhadhankiisana inaba caadi maahan bariiska haddii aad jeceshahay maraq hilibka aad ka bixiso kale waa ku darsan kartaa haddii kaleetana waxaa sameyn kartaa biyo karkar ayaa ku shubi kartaa ugu dambeyn qadadani sidaas ayaan saxan kusoo saaranay iyo xabad digaag ayaan soo saaray geeska kadib qadadii inaba caadi maaha ansalaatadeedii biyihii waxa dhan adduunka dhan miiska ayay ku diyaarsan yihiin inaba caadi maaha sidaas ayuu kusoo baxday kadib waa la rafaadiyay adduunka meel kasta wax kasta ayaa yaalo lagu kala tuuray marka waxaa waaye jikadii lagu raftay waxay noqotay in aan hadda hagaajiyo waayo ilmo yaryar ayaa haysta cuntada intaa karinaysa ilmihii kale ceelis iyo adduunyaha ay ku jiraan marka saxankiina halkaas ayaan kusoo dilanay bariiska marka waxa ayaan kala tuuri doonaa insha Allah isla arka sida kusoo baxday maasha Allah tabaarakallah waxayna halkan ayaan kusoo ritay maasha Allah lagama sheekeyn karo udgoonka iyo carafta iyo quruxda indhaha uruyaan fahanteen waxa waa sidaas ayaan kusoo dhameysan hoosheen maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo jikadii hooshii waxa waa shaqo ma dhamaato ma fahanteen yaa muuqaalka markii kuugu horeyso intaan noo soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka noo share garayso insha Allah waana mahadsantihiin daawashadeena quruxda badan iyo commentigeena iyo waqtigeena qaaliga ay noo horteen waan idinkaga mahadceliyaa meel kastoo adduunka joogtaan waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada